kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka 8 bishii Sebtembar ee sanadkii tegay ee 2018 madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay inay xiriirkii wada shaqayn u jareen dowladda federaalka ee Soomaaliya. madaxdaasi oo shir 4 maalmood ku yeeshay Kismaayo ayaa ku eedeeyay dowladda inay ku guul daraysatay wax ka qabashada ammaanka isla markaana ay fulin weysay ballamihii ay horay u qaaday. kulamo ka mid ah kuwa golaha amniga qaranka ee dhacay intii uu khilaafka maamul goboleedka iyo dowladda jiray oo mid ka mid ah uu ka dhacay magaalada Baydhabo ayaa waxyaabihii lagu heshiiyey waxa ka mid ahaa hirgelinta qorshaha amniga qaran, heshiisyo kale oo ay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ay ka gaareen qaybsiga khayraadka iyo in doorasho qof iyo codkiisa ay ka dhacdo dalka marka la gaaro 2020 dastuurka oo dib u eegis lagu sameeyo iyo in la qeexo nooca hanaanka federaal ee ay Soomaaliya qaadanayso. haddaba maxaa arrimahaasi ka hirgelay? xaguu ku dambeeyey khilaafkii xoogganaa ee dowladda iyo maamul goboleedyada ka dhexeeyey? maxaase la gudboon labadaba dowladda dhexe ee federaalka ah iyo dowlad goboleedyada si dalku hore ugu socdo? qodobadaas iyo kuwo kale ayaan ku jeexjeexaynaa barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka oo ay igala qaybgalayaan aqoon-yahan wax badan kala socda xaaladda dalka. waxaa arrimahaasi faaqidaya Cabdirashiid Khaliif Xaashi, madaxa hay'adda cilmi-baarista ee Heritage ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho. Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari oo ka tirsan xarunta kala soo jeedinta Soomaaliya ayaa xafiiskeedu yahay magaalada Muqdisho. labaduba qadka taleefanka magaalada Muqdisho ayay ku jiraan. qadka taleefanka ee magaalada Toronto ee dalka Canada waxaa barnaamijka uga qaybgalaya Burhaan Warsame Cabdi oo ah aqoon-yahan Soomaaliyeed kana tirsanaa guddigii dhexdhexaadinta ee maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka. soo dhawaada dhammaantiin. inta aanan barnaamijka gudagelin waxaan rabaa inaan idin maqashiiyo warbixin qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada oo Nairobi ku sugan iyo khilaafkan si guud uga hadlaysa oo uu Nairobi ka soo diray wariyaha VOA-da Qadar Maxamuud Xareed. mahadsanid Awlad. khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada oo soo jiitanayay ku dhawaad 2 sano ee la soo dhaafay ayaa weli u muuqda mid aan xal kama dambaysa laga gaarin. bishii Oktoobar ee sanadkii 2017 ayaa madaxdii maamul goboleedyada ee xilligaasi oo ku shiray magaalada Kismaayo waxay sameysteen golo loogu magac daray golaha dowlad goboleedyada, waxaana gudoomiye xilligaasi loo doortay madaxweynihii Puntland ee xilligaasi Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, halka ku-xigeenkiisana loo doortay madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare. khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeyay labada dhinac ayaana wixii xilligaasi ka dambeeyay gaaray meeshii ugu sarreysay. qaar ka mid ah maamul goboleedyada gaar ahaan maamulka Jubbaland ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo dib uga celiyay saraakiil ay dowladda dhexe ee Soomaaliya u soo magacaawday deegaanada Jubbaland, waxaana sidoo kale xilligaasi dalka ka bilowday arrimo siyaasadeed oo u muuqday in dowladda dhexe ay culays ku saareysay doorashooyinka madaxtinimada qaar ka mid ah maamul goboleedyada gaar ahaan Puntland iyo Koonfur Galbeed oo xilligaasi diyaar garowgooda uu soconayay. waxaana la sheegaa in dowladdu ay ku guuleysatay yoolkii siyaasadeed ee ay ka lahayd doorashada maamulka Koonfur Galbeed, halkaas oo uu ku guuleystay Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo horay u ahaa wasiir ay aad isugu dhawaayeen madaxda sare ee dowladda dhexe. bishii 9aad ee sanadkii hore madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho waxa uu ku shaaciyay in maamulkiisu uu gabi ahaanba isaga baxay madashii maamul goboleedyada ee lagu asaasay magaalada Kismaayo. dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ee dalka ayaa hadal haya in maamulada Galmudug iyo Jubbaland oo dhawaan la filayo inay ka dhacaan doorashada madaxtinimada laga dareemayo culaysyo siyaasadeed oo la doonayo in meesha looga saaro madaxda hadda hogaamisa si la mid ah sidii maamulkii Koonfur Galbeed. Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ah aqoon-yahan falanqeeya arrimaha Afrika ayaa sheegaya in madaxda dowladda dhexe ee Soomaaliya aysan ku guuleysanin inay xal kama dambaysa ka gaaraan khilaafka siyaasadeed ee muddada soo jiitanayay ee u dhaxeeya madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada. guud ahaan markaad fiirisid hataa muxuu ahaa xiriiro badan oo ilaahayeen dibadda hataa aad hoos ugu dhacay sida Sacuudiga markaad fiirisid marka Imaaraadka markaad eegtid waxaas oo dhan runtii waxaad moodaa runtii in xiriirkii aad hoos ugu dhacay. horta maamul goboleedyada naftirkooda inay soo arkaan dowlad kale khalad waay. maxaa yeelay maamul goboleedyadu waxa weeyaan waa federal system la qaatay oo laakiin xeerjab ku imaaday jacbur ah oo weli laakiin aan la ansixinin. marka waxaa loo baahan yahay in dowlado kale soo arkin oo macnaha ay ka tirsan yihiin dowladda Soomaaliya hoos tagaan, xukuumadda dhexena hoos tagaan oo marka in badan wax ka dhigistaan si marka qarannimada waddanka loo ilaashiyo. laakiin waxaa moodaa hoggaanka sare ee madaxweyne Farmaajo iyo Khayre inay ku guul daraysteen in macnaha ay qanciyaan maamul goboleedyada
sameeyaan la fadhiistaan waxa ay tabanayaan ay ka dhageystaan wadankana hor u socdo taa marka waxa weeye waxa loogu fadhiyaa xukuumadda dhexe loogu fadhiyaa wayna ku guuldareystay ilaa yawmana hada madaxweynayaasha Jubbaland Galmudug iyo Puntland ayaa ku sugan magaalada Nairobi waxaana warar madax bannaan ay sheegayaan in madaxdan ay magaalada Nairobi kula kulmayaan madaxda beesha caalamka iyo kuwa dawladaha dariska 12 bishii Maaj ee ayna soo dhaafnay ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa safar shaqo ku tagay magaalada Kismaayo isagoona halkaasi kula kulmay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Dr. Ibrahim Faarax Bursalid oo ah falanqeeyaha arrimaha siyaasadda ayaa tilmaamaya in dhinacyada siyaasadda isku khilaafsan ay gabi ahaanba wada hilmaameen maslaxadii guud ee dalka waxaad muddaa in xiriirka xukuumadda dhexe iyo maamul goboleedyada ay sii kala fogaanayaan sarta meesha ay ka qorantayna waa hanaankan federaalka muqdisho markaa fiirisid maanta waxa ka socda dhaqan dawladnimo iyo hanaan dawladnimo midna ma yaalo mucaaradkana dhaqan mucaarad iyo hanaan mucaarad midna ma yaalo lianna dadka in uu fakarka ku kala duwanaado waa arrin fiican waa arrin xalaal waa arrin caafimaad qabta waana arrin loo baahan yahay laakiin in la kala tago arrin meesha ku jirta maaha maamul goboleedyada markaad fiirisid xukuumaddu waxay walaaqatay baydhabo kismaayana cabsi baa hadda laga qabaa sababta khasabtay in garowe ay aad u tababushaystaan oo hataa xukuumadda ay ku mucaaradaanna sidaasay ahayd meeshii hargeysa la wada raadin lahaa waxaad moodaa qof kasta oo ama ka tirsan xukuumadda muqdisho ama ka tirsan maamul goboleedyada kala duwan ay ka fakari lahaayeen guud ahaan jamhuuriyadda sidii dib loogu soo dhisi lahaa loogu midayn lahaa loo nabadayn lahaa loo dal dhisi lahaa jamhuuriyadda waxaad moodaa qof walba inuu dantiisa khaaska mashquul ku yahay ama koox uu ka tirsan yahay ama reer uu ka tirsan yahay ama maamul goboleed uu ku qanacsan yahay maslaxadii guud la wada halmaama halka Professor Cabdiwahaab Cabdisamed ayaa qaba in dawladda dhexe ee federaalka looga baahan yahay inay hirgeliso dib u heshiisiin dhab ah iyo tanaasul badan si qarannimada iyo dadaalada horumarineed ee dalka loo sii xoojiyo waxaad moodaa runtii dadka Soomaaliyeed inay isku keentay inay heshiisiin ka sameeyaan dawladana waa dawladda heshiisiin oo dawlad macna xoog badan oo macna diktatoriyada ma ahan marka waxa loo baahan yahay inay dabacsanaan muujisaa loo baahan yahay qofka Soomaaliyeed walaalo wuxuu ku dhamaan leeyahay marka waxa loo baahan marka dadkani inay la fariistaan waxa ay tabanayaan ay eegaan yaani wadankan ina waxa way doorasho xalaal ay ka dhacdo Jubbaland ay ka dhacdo si marka loo ogaado cid ma qof kala shaqeyn kara hatta ninka haysta Allah ka dhiga hadii doorasho xalaal ay dhacdo ku soo baxa cidiidiisa nin wadan Soomaaliyeed si midka wadan Soomaaliyeed weeyaan laakiin wayna dhacdaa doorasho dhab inay xalaal inay dhacdo loo baahan yahay dadka Soomaaliyeed ku qanacsan yihiin haddaba muxuu yahay xalka khilaafkan siyaasadeed ee muddada badan soo jiitamaya ee u dhaxeeya madaxda dawladda iyo kuwa maamul goboleedyada su'aashaasi ayaan weydiiyay Dr. Ibrahim Faarax Bursalid waa safarkii ra'iisul wasaaraha Washington ku aaday oo kale adoon Soomaalidii wadanin wax Washington ka yaala ma ku Nairobi soo aadan cantara baqash bay meesha ku hayaan hatta shimbirayo heesa dhaanta ilaa Soomaalida ay Muqdisho wadooyinka oo dhan wada galaan oo la wada fariisto xal ma jiro dadka Soomaaliyeed waxay u baahan inay fariistaan oo maslaxadaas guud wada fiiriyaan dastuurka laga shaqeeyo dhab u heshiin run ah markaan la sameeyo ciidan la isla dhisto waxa dhan waa in la isxurmeeyo oo tawaaduc la muujiyo oo qof kasta oo qofka Soomaaliga kugu soo yiraahdo oo walaalkii uu la fariisto ajnabi wax nagala jira hadii Washington diyaarad loo raaci lahaa badda Atlantic la dul maro hadii Nairobi saacad loo soo dhuuman lahaaba Muqdisho oo daqiiqada ah ba halkuna ku jira rajo ka sokaysan aysan jirin tii rabbi waa gaar subxaana Khadar Maxamuud Xareed barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee VOA Nairobi mahadsanid Qadar Maxamuud Xareed ayuu kaasi ahaa oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Nairobi ee dalka Kenya aan dib ugu noqono barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka waxaan ku hormarayaa Cabdirashiid Qaliif Xaashi si kooban Cabdirashiid xaguu ku dambeeyay khilaafkii dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada waad mahadsan tahay colaad odayaasha kalena waan salaamayaa iyo dhegeystayaasha horta markii madaxweynaha Puntland la caleemo saaray ayadii ay isku yimaadeen madaxweynaha dowladda Soomaaliyeed iyo madaxweynayaasha gobolada kulligood shirar badanna waa galeen madaxweynayaal horena waa shirar qayb bay kala qaateen iyo siyaasiyiin kale garowgana waxaa lagala soo rogmaday in safxad cusub la furto oo dadka laga hor sheegay lana iyo garowsi ay moodeen in la garowsanaa in loo baahan yahay in wada shaqayntii la soo celiyo oo horey loo socdo waayadiina lagu ballamay in garowga la isugu yimaado oo madal la isugu yimaado ay daaqatay dhowr goor marka waayadiina maanta loo ballansanaa la arki doono in hirgalo shirkii macnaha National Security Council ama shirkii amniga qaranka dhanka kalena haddee aduu hadda xiisad weyn oo taagan ma jirto waayadii Axmed Madoobe carrada yimid madaxweynaha maaragtay Jubbaland
in macnaha dadkii beerkooda burcad la isku mariyeyna ma hubno marka hadda ma oran karno wax kastana waa la xaliyey sidii xaalku u xumaa 4 bilood ka horna sidaad sheegtay markii kasnaa lagu kulmeen arrintu hadda ma ahan laakiin wixii berigii hore la isku haysay hadda waqti looma hayo waa gartay waa ku soo noqonaya talooyinka iyo xalka dhan baa u imaanayna waxaan siinayaa ku xijinayaa dinaari oo muqdisho jooga bismillahi raxmaani raxiim qalad waa ku salaamaya burhaan iyo dhegeystayaasha dhammaan waa idin salaamaya siduu cabdirashiid u sheegay muddo way xasrada jirtay waxaan markaa kulankii lagu yeeshay magaaladii garowe calaamasaarkii madaxweyne dani waxay abuurtay iyodadiilo cusub oo maaragtay meeshii xoogaa in laisku cafiyey madaxweynaha federaalka iyo madaxweynayaashii maamul goboleedyadu ay isku cafiyeen sida cabdirashiid uu sheegayna waxaa muuqatay dhankaas iyodadiilo kadibna waxa ay dowladda u gudubtay dhinacan jubbaland waxaa la marti qaaday madaxweynihii jubbaland axmed madoobe oo loogu tegay kismaayo kadibna inta la keenay dhinaca kalena waxaa muuqdo is-urursi iyo isbahaysi ay wadaan maamul goboleedyada waxaa madaxweyne deni wuxuu tegay imaaraadkas la socotaan kadib wuxuu tegay kenya axmed madoobe kenya laftiisa tegay waxaan maqlaynay in sidoo kale maamulada qaarkood tageen waxaa muuqata marka in dib ay usoo cusboonaatay dhinacii isbahaysigii ay isku bahaysanayeen maamulada oo ay kaga soo horjeedeen dhinaca dowladda waqti badan haysanaa waa faaqidi doonaa waxaas oo dhan waxaan siinayaa burhaan colaad waa ku salaamayaa sidoo kale cabdirashiid iyo dinaari saaxib alwaan salaamaya dhammaan dhegeystayaasha soomaaliyeed ee idaacadda dhegeysanaya intii labadii nin odayaasha oo iga horeeyay ay yidhaahdeen ayaan ku raacsanahay way jiday sida aad u sheegtayba bishii sagaalaad ee sanadkii hore qaraar ka soo baxay magaalada kismaayo kaasoo dowlad goboleedyadu ay ku muujiyeen cabashooyin aad u badan oo ay kaga hadlayeen ballamo hore loo galay oo aan wax ka fulin halkaasna ay kasoo baxday inay leeyihiin intii wixii lagu ballamay fulayaan xiriirkii dawliga ahaa ee nagala dhexeeyay dowladda dhexe waanu joojinay balse sidii loo sheegay doorashadii madaxweyne deni iyo calaamasaarkiisii ee garowe la isugu tegay waxay keentay abuurtay yidigeelo cusub runtii anigu waxaan joogay garowe maalintaasna dadka soomaaliyeed iyo khudbooyinkii la jeediyeyba waxaa muuqatay in laga soo doogi doono meelihii hore ee la kala joogay ma dhicin shirar kaleeto oo loo dhan yahay oo la isugu yimaado oo lagu taataabto wixii la isku hayay iyo wixii ka qabsoomay shirar baa lagu ballamay garowe may hirgelin waa jidaa sidii saaxiibkii cabdirashiid u sheegay in ra-iisul wasaaruhu uu booqasho ku tegay jubbaland kadibna madaxweyne axmed madoobe uu yimid magaalada muqdisho oo halkaasna muddo la fadhiyey iyada laftigeeda labadaas shir qoraallo kasoo baxay oo la akrisan karo ilaa hadda ma hayno marka dhaqdhaqaaq wuu jiraa laakiin wax la xaliyey oo la taataaban karo oo hadda la sheegi karo oo ilaa iyo intii garowe ka dambeysay qabsoomay oo hadda aynu dadka la qaybsan karno halkan kuma hayo waa gartay aad baad umahadsan tahay intii khilaafkaa markii uu bilowday wixii ka dambeeyey doorashooyin baa dhacay oo maamul goboleedyada qaar ka dhacay waxay ka dhaceen koonfur galbeed iyo puntland sidaad carabka ku dhufatay galmudug waxaa weli ka taagan muran xoogan oo doorashadu inay qabsoomaysay in kale ah isbedelka puntland iyo koonfur galbeed ku yimid haddaan fiirino maxay ka bedeleen culayskii golaha iskaashiga maamul goboleedyada kasoo wajahaya dowladda federaalk ee soomaaliya cabdirashiid haddaan ku hormaro horta runtii macnaha siyaasaddu horta marna waa dadku waa isla qabsadaan isla jaan qaadaan marna ama si gar ah oo ama dadka ay masalhayeen iyo goboladii ay masalhayeen danahooda iyagoo tixgelinaya ama aragtiba ay ka tahay baa lagu kala boodaa marna masaalix baa lagu kala tagaa marka hadda berigii jawaari la ridahayay oo maxamed mursal laga dhigay guddoomiyaha dowladda waxay u qabtay in maaragtay maxamed mursal oo jawaari uga dhibeer yahay haddana isagii waa ka qabtay impeachment ka qabtay madaxweynaha oo arrintii markaas cirka kusii shareerantay hadda laftigeeda inay macnaha deni dad kale dowladdu inay dad kale dhisayeen baa dee warka un aadka loo hadalhayo kaas weeye macnaheedu waxaa laska dhigi karaa halkaas ugu yaraan xogaa halkaas un waa un libax nin ganay iyo nin galadayba og in ay ka dhici karto dhinaca kale inay cabdicasiis lafta gareen isaga ay doorteen oo gacan siiyeen baa la aaminsan yahay laakiin berri waxaa dhici karta inay kala wareegto oo dadkii la moodayay inay wada socdaanna ay maaragtay kala socdaan kuwo kalena wada socdaan maamul goboleed macnaha maxaa la madaxda soomaalida madaxweynayaasha iyo ra-iisul wasaarayaasha wada socon jireen
midnimada kala boodi jirin hadda kuwan waa wada socdaan waxaa dhici karta marka doorashada loo dhawaado in maaragtay dadka qaarkiis ay xoogaa rabta ka gasho oo kursigaba la wada dabco marka aniga siyaasiyiinta soomaalida markay isla dudaan iyo markay kala didaan runtii anigu wax gooniya ma saaro oo marna siyaasadda iska wadato marna masaalixda marna waa iska dhaqanka Soomaaliya waa gartay aad baad mahadsantahay waxaan u gartay oraahdaada soo xoorinaysa siyaasaddu saaxiib joogta ma laha laakiin waxay leedahay dan joogta ah oraahdii dhaysay waxaan u gudbayaa dinaari baan u gudbayaa maxaad ku diraysaa Cabdirashiid intaas Cabdirashiid waxaan ku dirayaa waxaa muuqato in faragelin oo maaragtay dalal badan oo ama mandiqada ku yaalo ama ay ku yaalo wadamadan carabta in ay faragelin badan ay ka jirto waxaana muuqato markasta oo la marti qaado madaxweynayaasha maamul goboleedyadu in markiiba ay siyaasadda ay la soo noqdaan ay tahay mid isbedesho tan hadda waxay muujinaysaa socodkii uu madaxweyne deni ku tegey imaaratigana wax kasoo bedeshay haddana aad moodid in ay dardar cusub oo isxulufaysi oo sidii horey u jiri jirta ay ka muuqato inkastoo aan laga hordhici karin haddana mar walbo aniga waxaan u arkaa in madaxda Soomaalidu ay maaragtay mar kasto faragelin ay u dhegan ugu yihiin caalamka faragelintiisa mararka qaarkoodna mas-uuliyaddii iyo culayskii ka saarnaa dalkan 30 sano burbursanaa inaanay meesha ku jirin oo ay tahay mar walbo sida hadda ay wax u dhaqmayaan markaad aragto ama heshiisyada ay la gelayaan maamulada haddaan aragno Somaliland haddii aan aragno Puntland intuba waxa waaye mid u danaynayso dalal kale laakiin aan u danaynin dalka Soomaaliya oo ay ahayd waqtigan in ay midoobaan ay aragti kale yeeshaan amniga iska kaashadaan wax wada qabsadaan dalka dhibaatada ay ka saaraan laakiin waxaa moodaa in waqtigii hore barnaamijkii jiray oo building blocks la dhihi jiray inuu aad hadda usoo shacbaxayo xitaa aanay wax yar aanay ku heshiin karin midnimadii iyo wax wada qabsigii ay qaran ahaan ismihiisa ayba wada qajeeli lahaayeen aanay meesha ka muuqan waxaa mar walba qasaya oo mar walba weji kale u yeelayo waa faragelinta oo maaragtay dalalka carabta ay maanta Soomaaliya ay ku hayaan waa gartay burhaan dan ansina burhaan khilaafkan ka dhaxeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada waxa qayb ka ahaa sida dinaaru sheegayo gacmo shisheeye hagu weynaado muranka weli ka dhex oogan wadamada qaliiska carabta gaar ahaan xulufada Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta iyo dowladda Qatar waxaad ka mid ahayd guddiga dhexdhexaadinta maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka faragelinta ama dareenteen intii aad hawsha ku jirteen colaad waa mahadsanta horta hogaanka dalka waxaa iskale dowladda dhexe ee Soomaaliyeed hogaanka dowladuna ma ahan mid meel taagan oo qotoma oo aan u dhaqaaqayn ummadaha kale ayna iska sugayaan dowladda dhexe ayaa laga doonayaa in iyadu daraasad ku subiso baahiyaha ay qabaan dowlad goboleedyada ee u geynaya dowladaha ajnabiga waxaan xusuustaa hadda ka hor madaxweyne xasan sheekh ayaa Puntland madaxdeeda la fariistay su'aal buu weydiiyey wuxuu yiri heshiiskan dowladda Itoobiya kula jidaan maxaa idin geeya simple waxay dhahay warshad kuma taalo halkan hubka lagu soo saaro hubka ayaanu ka soo gadanaa haddaanu hubka helana waa ka maarmi karnaa heshiiskaas dabcan dhaqaale iyo xuduudaha la isu gudbiyo amniguna way jiraan madaxweyne xasan sheekh wuxuu yiri dowladda dhexe waxay isku dayaysaa inay baahida idinka kafaalayso baahidii weli way jiraa mid dhaqaale ayaa jira mid waxaa jira shabaab lala dirirayo waxaa jira mid cadaawadeed oo kala jira amniga gudihiisa in la isugu daro marka dowladda dhexe ayaa looga baahan yahay arrimaha keenaya baahida gobolku inay dibadda u aado inay iyadu kala tacaalayso haddii dowladda dhexe mar walba iyadu isu aragtay inay victimka tahay ama aysan gaari karin dowlad goboleedyadii arrintoodana wax ka qaban karin dee ogow dadkaasna mas-uuliyad baa la saaray waana la doortay wayna tegayaan ma ahan wax joogto ah oo aan laga gudbi karin waa wax laga gudbi karo laakiin waxay ku xiran tahay hogaanka iyo siday u maareeyaan iyo siday dalka iyo dadka arrimaha uga gudbiyaan waa gartay Cabdirashiid baan kusoo noqonaya Cabdirashiid burhaan sida uu sheegayo maamul goboleedyada waxaad moodaa in marka ay dowladda isqabtaanba in meelo kale ay danahooda u raadinayaan ma ku muuqataa in kala fogaansho weli weyn ka dhaxeeyo wada shaqaynta xagga dowladda iyo maamul goboleedyada oo aanay jirin wax midaynayo oo ay doonayaan inay ku midoobaan oo dantooda ku jirto horta macnaha dowladda Soomaaliya u jirta waa dowlad aad u tabar daran especially midda federaalka waa dowlad aad u tabar daran maamul goboleedyaduna ayadii kasii tabar daran yihiin oo guud ahaan waa dowladdaas 20 kun oo ciidanka asliga ay joogaan madaxdii la waardiyanaya akaan waardiyanayso ilaa macnaha 2006 hadda
dhowr toban sano la waardiyeynayo waa dowladdaas haddii Museveni uu beri intuu maaragtay ismadax maro uu yiraahdo ciidankay waa la baxayaa kaftii maaragtay ay ka dhacay karto oo sida maaragtay xalana iyo diyaaradaha lagu kala cararayo marka dalkaas u tababaran horta kow inuu yahay waa in maskaxda lagu hayo dadkaas marka 10 sano la soo dhaafay dowladda Carto Cabdiqaasim madaxweynaha ka ahaa ilaa hadda dowladdan siyaasad waxaa lagu soo waday wax isku aruurina maamul goboleedyo aan labadii gobol wada haysan baa la dhahayo maamul goboleed baa tii niman maaragtay gubernatoriyaal in loogu magacaabo madaxweynaha waxaa leeyihiin waxaa la dhahayo madaxweynayaal baa tii kooxdooda warooda ahaa waa xildhibaano iyo wasiiro la siiyay dowladda Imbagaati warroodka wasiirada iyo xildhibaanada qaatay waxbaa la isku kabahay oo dadkaana beerkooda burcad la isku marinayay marka dowladdan horta koow waxaa laga rabaa waxaan oo maaragtay kala biidhayo oo kala biidhayo oo khafiifka ah oo dowlad ku sheega oo intaas soo gudbinayay horta koow waxaa looga baahan yahay inay horta aysan uga darin oo ay isku soo aruuriso oo ay kala yaacin oo aan cid kale maaragtay filim u yeerin ama maaragtay macnaha far ugu yeerin ayadaa laga rabaa marka inaan meel kale looga dhaqaaqin dadka ay aruursato markii bulshada caalamka waxaa la isku dilahayay annagaa dowladdan gardaadinayna markii dowladdii hadda dowladda farmaajo ay imaanaysay ingiriiska iyo maaragtay turkiga iyo waa la isku wada maaragtay annagaa saaxiib gooniye la ah iyo annagaa carab la ah iyo carabuhu xataa maaragtay madaxweynaha mar hadda boqor ba u yeerayay hadda amiir ba u yeerayay waxaas marka dowladda laga rabaa adduunkaas kala jeedjeedana inay isku wado shacabkan mid walba meeshiisa gaashida ku haysto oo shabaabka iyo daacish iyo ku hareeraysan yihiinna ayadaa laga rabaa horta inay dadkooda haysato marka haddii waa kaas ha tago oo nin kaloo ay qaraabo ah inuu kaa aado eedda waxbaa ku leedahay marka madaxweynaha hadda anigu ahaan lahaa dulna garow aan fadhiyi lahaa dulna kismaayo dulna dulsamareed iyo cadaado iyo dulna baydhabo ayagaa laga rabaa dadkaas inay ku dhex jiraan ayagaa laga rabaa dadkaas inay maaragtay ay kalsoonadeeda haystaan kaas horta waa midaas oo haddii waayeelka ma markasta la fiirinayo waayeelka ah baa leeyahay iyagu marka eedaas kama fakan karta haddii laga kala yaacayaaco midda labaadna hadda Siciidan iyo kale safarkiisa imaaraadka kale anigu ma baasaysan wuxuu aaday iyo ciidamada meesha ay ku hayaan dekada waxbaa jirjiray dhaqaala iyo xoolaha laga dhoofsadaa marka in la baasaysto ma qabo in yimaado oo la wareysto oo loo baahan yahay haddana marka xamar iyo inta kaloo adduunyada laga helayo iyo qatar iyo yurub kantaan wax laga siinahayn ama maaragtay halkan waa in halkan loo soo jeediyo halkan uu iimaansado haddii iimaansan in indhaha taagtaa oo ku khasbanaan doona carrada firfiidiyo iyo kaloo geeda carrada wax ka jiraan marka dadka talada hayana waa inay dadkooda aruursadaan marka waxaa leedahay haddii iyaga ay ururin waayaan cid kale ururinaysa aadaya waa si fiican baan kuu fahmay waxaan rabaa inaan siiyo dinaari baan siinaya dinaari magaalada muqdisho aad joogtaa talooyin baad ka soo saarteen dhowr jeer hay-addiina magaalada ammaankeedu wuu soo xumaanaya dad baa aaminsan marka khilaafkan maamul goboleedyada ka dhexeeya iyo dowladda federaalka Soomaaliya qayb buu ka yahay amni xumada magaalada muqdisho kusii kordhaysa oo dayacaad baa timid mar haddii siyaasadii aanay deganeyn dayacaad xagga amnigaa timid aragtidaa ma jirtaa magaalada aragtidaas waa suurtagal waana jiri kartaa laakiin aniga waxaan arkaa oo aan abdulshiid ku khilaafsanahay mas-uuliyadda saaran mas-uuliyiinta maamul goboleedyada markaa fiirisid kuwa tan federaalka saaran markaa fiirisid waxaas oo dhan haddii ay maanta wada shaqayn lahaayeen oo wada shaqayn fiican ay maamulka federaalka iyagu ay wada yeelan lahaayeen dhibaatadan oo dhan ma dhacdeen laakiin waxaad muuqato in meel kasta oo kamid ah dalka Soomaaliya in iskiis maaragtay isu caleemo saaro iskiis uu rabo oo heshiis uu gelayo oo maamulkii federaalka aan wax warag ka hayn waxaan arkaysaa taas inay u dhimayso xiriirka wada shaqaynta haddaan soo qaadan mandiqada dalal badan oo Ethiopia ay hadda dhinaca naga saaran tahay waxa ka jira maamul federaal haddana maamulka federaalka ma dhici karto maamulada ama zoonkaasi intuu iska baxo ama imaanaadka xiriir ula sameeyo ma dhici karto laakiin waxaa muuqata meesha waxa keenaya dhibaatadoo dhan inay tahay faragelinta ay wadamada carabta ku hayaan dalka Soomaaliya aniga mas-uuliyadda eegaan saara waxaanan saara siyaasiyiinta hadda kuwa xitaa hadda sheeganayo mucaaradka laftooda waxay u degan nugul yihiin inay dhegeystaan wadamadaas shisheeyaha ee carabta hadii marka ay noqoto oo aan tahno anagani uu maaragtay aqoonyahanka ay yidhaahdaan haddii asigii laga waayo waxaa la aadaa dalalkii oo maxaan kira carabta aniga waxaan u arkaa arrintaas inay tahay arrinta ugu badli badan ama dhibaatada maanta siyaasiyiinta Soomaalida haysato waa dowlad urdun oo hadda dhalatay waxaan dhihi karaa inay wax badan dalka ka qabatay marka la fiiriyo ay isku dayday inay amniga wax ka qabto isku dayday
in ay ciidan samayso ay isku daydo in ay maaragtay siyaasiyan meesha ay maanta caalamka ka taagneed ay kasoo kacdo oo dhinaca marka la fiiriyo xiriirada ay la samayso IMF ama World Bank waxaasoo dhan inay wax badan ka qabato laakiin markii la rabay in gacan ay siiyaan maamuladii gobolada gacan kama helayso. waa kugu soo noqona bura waad maqlaysaa waxa la leeyahay dowladda federaalka Soomaaliya mas'uuliyiintooda markaad la hadasho ood weydiiso maxaad dalkii isugu hayn laadihiin oo guuldarrada inay kugu wacan oo ammaankii wax uga qaban laadihiin qodobadii aad sheegtay inaad waddanka ku hogaaminaysa maxaad u fulin laadihiin marka la weydiiyo waxyaabaha cudurdaarka ay ka dhigtaan waxa kamid waxay leeyihiin siyaasiyiintii la doonayay muddada 4 sano aan dalka hayno inaan la shaqeeyaan ayaa lagu hanagu dhigay bilihii ugu horeeyayba aragtidaa ma qabta adiga dowladda dhexe anigu weli waxaan qabaa dowladdan hadda madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo iyo prime minister khayre in badan inay isku dayeen in ay tii dibadda soo ceshtaan halka ay ka gacbiyeen inay tii dalka gudaheeda uga maqnayd ay soo ceshtaan iyagoo ku soo ceshanaya wada hadal iyo wada tashi oo weli dowlad goboleedyadii ay qabaan baahiyihii soo jireenka oo ay qabeen ayna ku kallifayso baahiyahaas sidii markii horeba markii intii dowladda dhexe dalka ka maqnayd ay ula kaashin jireen banaanka inay weli ula kaashtaan maadaama dadaal badan la geliyey dibadda ee aan la gelin dalka gudihiisa intii loo baahnaa waa midda labaad waxaan anigu dinaar waa ku khilaafsanahay anigu waxaan macnaha waxa weeyaan haddaad aragtid raggeed maanta dowladda Soomaaliya madaxda ka ah oo aan geedka kasoo bilaabo madaxweyne Axmed Madoobe wuxuu ahaan jiray xildhibaan federaalka madaxweyne South West sidoo kaleeto laftigaran wuxuu ahaa wasiir iyo wuxuu ahaa xildhibaan madaxweyne xaaf wuxuu ahaa xildhibaankii ugu tirada badnaa xildhibaanada Soomaaliya xildhibaanimada sheegay ilaa 2000 carta madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni wuxuu ahaa wasiir iyo xildhibaan intii uu og yihiin dhibaatooyinka dowladda dhexe ee ka jira iyo sida maamulka iyo in halkaa wax laga maamulayo waa adag tahay waa dadkii ugu habboonaa oo ay wada shaqeynayaan madaxweyne waarana waa nin badan isna sidoo kale waa nin khabiir oo hay'ado badan kasoo shaqeeya marka haddii dowladda dhexe ee maanta jidda madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre nimankii shalay federaalka joogay oo dhigooda ahaa ama lamid ahaa ay maanta wada shaqeyn kari waayaan way adkaanaysaa qof kale oo cusub oo banaanka ka yimid oo weligii joogay heer gobol inay wada shaqeeyaan waa midda koowaad haddaad fiirisid madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni anigu runtii lama joogin shirarkiisa hoosena kama warqabo laakiin wararka aan helayo wuxuu u tegay meeshaas inuu imaaraadka kala xisaabtamo heshiiskii dekedii boosaaso oo ahayd dekedan ma u soo jeedaan oo maalgelintii iyo dhismihii aad ballan qaadeen ma fulinaysaan mise waa idinka tashanaa waa mid wuxuu la shiray ganacsatada oo wuxuu yidhi imaada oo kaalaya gobolkii maalgashta 3 waxaana kamid ahayd ganacsatooyinku la shiray in diyaaradii fly Dubai ay tiri waxaan bilaabaynaa fly Dubai waxaasina waa development Soomaaliyeed waa horumar Soomaaliyeed iyo horumar gobolka in la sharaystana ma aha sidii haddii cabdilshiid hadaayad uu yidhi in la sharaystana ma ahan waxaynu nahay dal federaala madaxweynaha dowladda dhexe wuxuu mas-uul ka yahay dalka Soomaaliyeed oo dhan waana sidii la sheegay waa in madaxweynuhu intuu baxo ama raadsado haddii ay ku filnaan weysay hadda dadka la maamulaya dalku in intay baxaan ay dalkii gaaraan oo ay gobol walba gacanta geliyaan oo cid walba la fadhiistaan inuu raadsado dalkan la maamuli lahaa mas-uuliyad weyn baa isaga saaran kuwa dowlad goboleedyada Soomaaliya waxaa saaran mas-uuliyad equal ah waxaanan qabaa nimankaasi intay baxaan aniga sidaan qabay waana la shaqeeyay qaar badan oo kamid ah oo dowlad ajnabi hor fadhiistaan in aysan ka shaqeynin dowladda dhexe Soomaaliya inay dunto because qofka sidaa u fikiraya ma ahan qof Soomaaliya waa garta gabagabaan marinaa barnaamijkeena waqtigaas nooga hartaan ka faa'iidaysanayna dhegeystayaal intiini laga yaabo in dhegeysiga barnaamijka aad dib uga soo beerteen waxaad dhegeysanaysaan idaacadda VOA-da laanta afka Soomaaliga barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa barnaamijka marti ku ah Cabdirashiid Khaliif Xaashi madaxa hay'adda cilmi baarista ee Heritage ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Dinaari oo ka tirsan xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho labaduba qadka taleefanka magaalada Muqdisho iyagoo ku jira ayay ka qaybgalayaan barnaamijka qadka taleefanka ee magaalada Toronto ee dalka Canada waxaa barnaamijka uga qaybgalaya Burhaan Warsame Cabdi oo ka tirsan aqoonyahanka Soomaaliyeed kana tirsanaa guddiga dhexdhexaadinta ee maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya aan ku noqono barnaamijkeena mar kale Cabdirashiid baan aadaya Muqdisho Cabdirashiid waqtigii doorashada ee 2020 loo ballamay waa soo dhawaanaya suurtagal ma tahay in waqtigeeda ay ku qabsoonto haddii ay qabsoomi weysana muuqaal noocee ayay gelaysaa siyaasadda Soomaaliya waa mahadsantahay anigu arrinta doorashada waxaan kusoo gaabinayaa annaga heritage ahaan daraasad ballaaran oo hal sano ku dhawaad weliyadan ka wadnaa waana soo bandhigaynaa haddii 2020 sida wax noqon karaan ama sida ay
noqon karaa ilaa 4 hadda arrin oo la samayn karo oo noo muuqata marka darashadaas soo bandhigi doona Ramadaanka insha Allah taala laakiin waxa waqtiguna aad u ciriir u yahay marka dowladdan waxay sharaf ku helaysaa magacaana ku heli kartaa inay talada doorashada ay miiska soo saarto dadka oo xildhibaanada iyo aqalada iyo gobolada iyo xisbiyada soo dhigto waxay soo diyaariyeen wixii ka dhiman lagu qurxiyo kadibna dalkan ayadoo xisbiye leeyahay shacabka la aado coddow inta haday sameeyaan amniga muqdishona sugaan kiyaa karadana iska qabsigan iyo waxaan magaalada laga yareeyo hadii kala waxay sheegan karaan guul waxaan u noqon kartaa arrin ay ku kaambeyn hadii soo noqosho rabaan ay ku kaambeyn karaan waa garta aad badan maasan tahay Cabdiraxmaan Dinaari ma kuu muuqda adiga rajo laga qabo in doorasho qabsooto oo waxa qorshihii loogu talagalay ama dawladdu iyo maamul goboleedyadu ku heshiiyeen uu sidiisii ku hirgalo aniga qorshaas ima muuqdo inay suurtagal tahay haddii sida ay hadda wax ku socdaan ay noqoto dawladdu ma awoodo in ay wax ka qabato ama ay ku fakarto doorasho iyo cod iyo qof mar haddii amnigii xasilintiisii ay meeshan marayso mar haddii aanan dawladdu markaas xitaa mucaaradka laftiisa rabo berrito inuu soo noqdo ama uu dalkan madax ka noqdo isagaa waxaa laga rabaa in uu ka shaqeeyo sidii ay arrintaas u suurtagelayn nasiib darrose waxay tahay nimanka mucaaradka sheeganayo iyaga laftooda waxay dhinac kaga jiraan inay qarribaada ay ka qaybgelayaan oo ay qayb ka yihiin oo ay u arkaan dawladdan muddada 2 sano u hartay in maaragtay kadib ama si degdegsiye ama meesha looga tuuro oo meesha looga saaro oo saas ay iyagu kursi ku heli karaan oo ay meeshaas ku fuuli karaan aniga laakiin waxa ay muuqataas inay suurtagal ahayn waxaana iyadana ay mas-uuliyadeeda ma qaadayso dawladda federaalka keliya waxaa la qaadi doona dadka siyaasiyiinta ee mucaaradka sheegana waxaa la qaadi doona maamul goboleedyada dawladdan aniga waxaan u arkaa wixii ay qaban lahayd oo dhan in aan loo suurtagelinin oo aanan lagala shaqaynin hadday tahay maamul goboleedyadu aanay kala shaqaynin hadday tahay mucaaradkuna aanay kala shaqaynin arrintaas suurtagalna ma noqon karto in dawladda lagula xisaabtami doono in la dhihi doono maxay u dhici weyso gabagaba marayna su-aal xalka ku saabsan baan idin weydiin doonaa laakiin burhaan baan tegayaa burhaan adigu ma kula tahay in doorasho qabsoomayso oo waxyaabihii lagu heshiiyey maamul goboleedyada dawladda Soomaaliya oo wanaagsanaa la hirgelin karo waqtiga yara dhiman anigu waxaan qabaa doorasho hal cod iyo hal qof si kastaba ha adkaatee waqtiga haray haddii sharcigii sida ugu dhaqsaha badan loo gudbiyo loo soo jeesto arrintaa in laga shaqeeyo oo si niyadsamyo looga shaqeeyo oo sidii saaxiibkii cabdirashiid u sheegay miiska lasoo saaro in wax badan ka qarsoomi karaan 100% doorasho waa suurtagal deegaamadiisa inaan laga wada qaban laakiin anigu waxaan aaminsanahay inta shabaab Soomaaliya haysataa waa ka yadhahay 10% degmooyinka Soomaalidu intooda badan haba amni daraadeena waa xor marka doorashada inaan lagu xijeenin 100% dalkan markuu amni noqdo meelaha kale loo filay intii ay ka qabsoomi karaan ayay ka qabsoomaysaa waa gartay aqoonyahan Soomaaliyeed baa tihiin oo barnaamijkana gabagabo maraya su-aasha ugu dambaysa waxaan rabaa in hal daqiiqo inaan siiyo maxaad kula talin lahaydeen dawladda federaalka maxaad kula talin lahayd maamul goboleedyada iyo mucaaradka sida Dinaar uu sheegay kasoo horjeeda dawladda labada talaad bixinaysaa marka hal daqiiqo aan siinaya waxaan ku hormaraya Cabdirashiid waad mahadsan tahay anigu mucaaradka waxaan kula talin lahaa shabaabkan waqana iyaga hadda dawladda mucaaradka ugu weyn hortagan iyaga weeye inay miiska nabadda yimaadaan oo dalkan 20 sano hadda oo 30 sano ku dhawaad baan wareer ku jirnaa inay miiska nabadda yimaadaan Soomaalidu diintooda in la isku dhaqan ma diidana baawarka in laga fiiyana looma diidana Amazon iyo asaaniinta inay baxaan lama diidana dawladda ma diidana kuwaasna ma diidana marka shabaab horta inay sheedanka iska naaraan oo miiska soo fariistaan aan kula talina dadka siyaasadda ku wada jira oo ninna markaa miiska fadhiyo ninna banaanka joogana oo ama dawlad iyo dawladda waxaa isla ah baarlamaanka iyo xildhibaanada iyo madaxweynaha iyo waxaa dawladda isla yihiin kuwaasna waxaan kula talinayaa in berri ay lasoo bedeli doono oo ragga banaanka joogana gudaha geli doonaan oo saa dambe ama 6 sano kadib ama 10 sano kadib kuwa banaanka joogana maxaa la yidhahdaa ay gudaha marka horta sheedankan iska naaro la ogaado inaan la isku ciiroodin shacabka Soomaaliyeedna waxaan kula talinaa inay indhahooda furtaan oo waxa saxda ah kala yaqaanaan oo caabisada iska yareeyaan oo caqliga ku shaqeeyaan guryahooda markay maamulhayaan ba caabisada ku shaqeeyaan caqliga ku shaqeeyaan xisaabta ma khaldaan markay dadka siyaasadda ka buuxo oo 90% dad danley u badan ay fiirinayaan oo inay indhaha u furan yihiin oo ay la xisaabtamaan oo ay caqli leeyihiin oo habkan maxaa la yidhahdaa iska maaragtay caabisada badan iska yareeyaan dadka kala fiirinaya 3 qolood oo dalka ka kooban yahay
waa gartay dinaar baan siinaya aniga waxaan rabaa horta marka ugu horeyso waxaan dowladda federaalka Soomaaliya aan rabaa inaan xusuusiyo inay mas'uuliyad badan ka saaran tahay inkastoo dhibaatooyin fara badan ay kala kulmayso mucaarad iyo muxaafid intaba dhinaca kale maamul goboleedyada dhammaantoodba iyadoo dhibaato kala kulmaysa haddana waxaan kula talinayaa in ay muujiso mas-uuliyaddaasi oo ay samayso dabacsanaan oo ay soo dhaweyso gaar ahaan maamulada gobolada isla markaasina ay albaabka laftooda u furto qolyaha mucaaradka sheegana laakiin anigu uma arko inay mucaaradka waxaa la yidhaahdaa waa qof diidan qalabka ama habka dowladdaasi ay u dhaqmayso ee nidaamka ay wax ku wado hase yeeshee mucaaradka adduunku waxa uu mar kasta dowladda ku garab istaagaa wixii dalka iyo maslaxadda qarankaas ama dalkaasi uu leeyahay dalka waxaa dan u ah in markooba nabad la helo isaga laftiisa siyaasiga la helayo haddii aanu dalka nabad noqon oo aan si nabada doorasho uga dhicin shirshadid doorasho oo intuu sameeyey dalka gudihiisa lagu qabto kadib xasan haddana dalka gudihiisa lagu qabto oo intaba ay ka tegay marka laga adkaado marka fursadii la siiyey waa in la siiyaa maamulka hadda jiro uu hogaamiye madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare hayne waa in fursadaas la siiya oo mucaaradka laftooda ay kala shaqeeyaan sidii arrintaasi ugu suurtagelin maamul goboleedyadana waxaan leeyahay dalka Soomaaliya waxay dib ugu jirtaa in dowladda yar ee maanta jirto la wada dhisto oo qaran jiro oo Soomaaliyeed ay noqoto inay gacan ku siiyaan oo ay ka daayaan maaragtay iskashaada oo ay ka daayaan waxyaabaha aanay munaasib ku ahayn oo ay u hoggaansamaan nidaamka dowliga ee federaal waa gartay burhaan adigana daqiiqadaada aniga waxaan ku talinayaa midda ugu horeysa waa qabaa mucaaradka ugu daran ee Soomaaliya qabtaa waa nimankaas dowladiidka shabaabka ah in ilaahay dariiqa saxda ah ku soo joosiyo oo ay gartaan dhibaato ku filan dadkan iyo dalkan inay u geysteen aan laguna sii jiri karin laakiin waxaan rabaa inaan xusuusiyo talada ugu weyn waxay ka go'daa dowladda dhexe mas-uuliyadda ugu sareysa heer qaran waxa haya dowladda dhexe marka waxaa looga baahan yahay 2 sano waa waqti aad u tiro badan caalamka maandeedyada la wada haysto dhan waa 4 sano kuwa ugu badan baa 5 sano haysta halkii keenan laba waqti badan baa idin dhiman talada dejiya u tala dadbadsada ragga ay waxay la wadaayaan isugu yeera amniga wixii looga heshiiyo si wadar ah oo wada jira ha loo fuliyo muxuu ahaa wixii idinkoo wada socda idin wada qarsoomi waayo dadku way wada arkayaan oo laysma xamanayo laakiin waa markii wax waliba ay cad yihiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin waa idinkaga mahad celinaynaa ka qaybgalka barnaamijka faaqidaada toddobaadka intaas ayaan dhegaystayaal ku soo afmeeraynaa barnaamijkeenii faaqidaada toddobaadka oo aan dib ugu eegaynay halka uu ku dambeeyey khilaafka muddada soo jiray ee ka dhexeeyey madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee federaalka waxaa barnaamijka ka qayb gelayay cabdirashiid khaliif xaashi madaxa hay-adda cilmibaarista ee heritage ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho cabdiraxmaan nuur maxamed dinaari oo ka tirsan xarunta tala soo jeedinta soomaaliyeed ee fadhigeedu yahay muqdisho labaduba qadka taleefanka magaalada muqdisho ayay barnaamijka kaga qayb galayeen qadka taleefanka ee magaalada toronto ee dalka canada waxaa barnaamijka uga qayb galayay burhaan warsame cabdi oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed oo ka tirsanaa guddiga dhexdhexaadinta maamul goboleedyada iyo dowladda federaalk ee soomaaliya intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno waa maxamed colaa xasan oo idinku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo